ay dilin maya ay dilin aniga si fiican dhigayso muna arintan haduu ogaado kuma sii daanayo kabayo ka siinaya la soco أنت كل شيء ويلكي كالي عشان حقيقتي قابك نكا مديد لوغو مدو هدا فيريسو waxay ila tahay ninkaanit in loogu talagal in midida suxun loogu dilo tali horta ninkan yaa waayane teeda kale noloshu ku sulciyo waa rafaadiyan ku dhaw ku reersanaay ninkan bini'aadam ya misjini waa hortiishak shashtari qof walba uu noqon karaa balse aagan kuma cusbaasaga waana adagtahay markuu roobka da'ay raadka qofka in la raaco laakiin haddii maqaalinta la tuuro malaayigu wuu ku soo dhici doona mar uun okaadi isbaaradaha qaadine waraaqadaha kebladiga ariya maha ka leex ka fura أنا شقي بقولنا لابتي سوا سوق دبت يا بابلا كساو قفتي سنة كل قصة ديالا وتصومها هنه يا بابلا وكذا ما تواجباتك أنا يا جذنايو أوكي تم ماهن مدي حكتنا ماهن تنكسي حكتنا ماهن بس لكن مسارتنا يا أنفعيسو walaalka mantu markino asxaabteer meel isku soo urursaday bas soo anigu waan dhamaadkii ku dhaayay badbaadiyaa ما تعد إيكا بدبادنيس ملهن قعدت ذي تقولي من يسا قلنا ماشي متى قوريا وحن سوقا يا انت انك لفري سوق ليا هذا لا نكون هذيك ها بابنا قوريا اي هلبت المسر هذيك الارت مركي دقدق كسو بخدي way dhaceen Bangalore ay geeyay hadeertana ayaga markaa dilo oo kab ka siiyo een aday alaabta ku keenaa waan ku soo qaadaya يا تاوريا باسريو كالا هرتدي مو marka hore ujeedkeedu waxa uu ahaa aniga hortaada inaan imaado laakiin aniga
بس ارميه لي ما تقانا وريعد ليست مانجو يا لقري هذا قفكا هدي بس سيدا عم بيه وكلام كو جرجريا يا تاوري أديها هل كمدان قرنين ومقعيقة قلنا وحنا ننطلقاتكو كيريه aniga in muddo ayaan waxaan sugayay ninkaas inuu gacanta ii soo galo kadibna aan ka takhaluso laakiinse fursadaas waan heli waayay maanta adiga ayaa ii joogo hantideeda adiga ayaa iskale keliya waxaan kaa doonayaa ninkaasi dunida in aad ka haajirisid taas ayaan u baahanahay ma fahamta hadalka لندني كشمامي ما دينا أديك أيام مسؤول كهيا أنا جوان بحايا باي هلا بابا كوسوب على تلفونك ما حيقول لي تلفونك يقوى دار وقبنا دار ومقونا دواتلك يسمحي هي بلسا حكيتنا قروح ذا ميات كفانيسا لو قد دير هديك ويا لانها أقلان إن أي دورك كوجيان هدي أد مقنت على أنت ونولان كرا لكن كنا هذيك العادة هذا من نولان كرا I hate you وريا هاي لا في حبيبتي بس waxaan kaaga digayaa marnaba inaad isku dayin nolosheedii inaad ka fogaato waxaan ku dhahay waan ku nibcahay قلنا
rafiil laa u maalin guriga ma uusan imanin marka ma soo eegi kartaana haye hooyo anaa soo fiirnay قلنا هوريا باتر ربي ما ركتنا ما قلنا تاني يمركي وانس عادي انا حد كيقول لك وايه قلنا جولدن ربي ما ركتنا waan ku dhartay soo maaha ima aaminaysid miya guriga ayaan iska joogaa aniga odagtay inaanan adiga been ku sheegin in khamrigu isku daldalaya karaabka laga yaabaa inaad ka heshidee معنا ربي هالكن مجوجين هم معلومات مركنا ماشي أنا سجوا العكتي ساعتين خمارس كديلي ولا يقولون وانا قص بيدا وريري لكن ما كانوا هالكس كسويا وكتوا اسك كده يعني هلو كلا هذيك لبض دقيقة حتى ميدانين يسيد مياه هرما كبحينا محكا قلدن والله علي هذيك محكا قلدن مركان كوسو دوا وهذيك عرري مركان كافو قادنا تلفنا تيجي صوت دوعي محان كو خبتا والله علي كبد أي إلى موقتا هذيك يشك أنا يسين كولا موقدا ها يشك هنا سيدان كولا موقدا ما دي شك تدنا أنا يسيدان كولا موقدا wax walba way iga lumeen كبر بدن تانكو أركا جر تلفونك باد بوي noloshu way khasaartay wax walba way iga baabeen rafiiw soo kici halka soo saaxiiba kaalay soo seexa maxay tahay dhibaatadaad noo geysanaysid maxaa kugu dhacay inankaygii hooyo orado cashee seexo bersi waxaanaa soo booqanay oo xaaladiisa ka wardoonaya okay walaalka furaa isiinoo isbuuc soo socdayaa lacagta ku siinaya ha iga xanaajinayaa lacagta markaad bixisa ayaad furahaaga qaadanaya walaalka kii taleefonka wanjaa waakaas asxaabtaa gacanta ku soo dhigta ma aragtaa waryara walaalka aad sheegaysaan aniga aan la kulmin waayana meeshan maxaa ku keenay maxaad ka soo doonta mise dharbaaxan labada dhagood ku qarxiya baan ku yidhi kaale laakiin waa maxay sidaad isoo fiirinaysid indhahaaga waxaabaad u malaysaa cadceedda sida ay indhaha dadka uga qabatay bay indhahaagu ii hayaan midaada kale meeshan maxaad adigii asxaabtaada aad wakhtiga isaga soo lumisay inaad timaadaba looma ahayn annagaad noo sheegi lahayd sooma annaga wax walba xallin lahayn walaalka midaada kale kaa timaha waaweyn leh maxaad meesha ugu soo khasaarayseen walaalka wax walba iman lahaa wax xallin lahaa soomaaha marka meesha waxaan ku yidhi hey ukaadi baan ku yidhi hooyada maxaa macnaha ma caynaya macnaha hooyada baan ku dhaaranayaa war ukaadi ninkan baan ku yidhi ninkan nin khatara weeye baan ku yidhi dad fara badanoo hore buu soo ugaarsado ilkaha uu ka soo daadiyey taleefonka markaad igala hadlaysay sababtaad i caysa maxay taha marka iisheeg hore ah taleefonka walaalka ma waalan tahay adiga mas ayaad u egtahay moogtahay waan kaa cabsoonaya waan kaa cabsay lafeegan baqay ama isirus waan ku taageeraa walaalka u sheeg walaalka inaan taageero walaalka saaxiibkay aad iyo aad ku taageerada hay walaalka ma taageertaa bis wax ma ku weystaa boo iska bax fasaxaataana hay walaalka waa ku taageeraa ina mar walaalka ninka waa soo noqonayo dhahay saaxiibadii ayuu ka xiste lama baana ninkana sii dayso waa inaad kow ka siisaa gawaantiis na u dheere ninka nin lejana waaye iska daha iska baxaniyo celebrity-nimadeedu aaminsan adna saaxiib fiicana talayso hay saaxiib sidaan u sabtay ma aragtayna ها وجدنا فير لكن أنا حوجا وعمصد مقتهي saaxiibtii sidaasaan u daawaday xitaa wax badan gurigaaga waan daawaday horey ma kugu sheegay ماي ورا فير حاسكي جوا xaaskaaga weeye anigana walaashay weeye soomaa marka iska dhaaf ya akhi waa caadi أروسك إن لبوبسي وهذا laakiin waa khatar waxaan doonayaa inay gabar walaashaay oo kale oo beel oo khatar ah ورا فير هذا ما حكوا لسان وريا قلنا هدو أرينك كوجا إنه كوكاسينا مقتهي أرينك هذا بس كراف muxuu garaacaa marba meesha gabar haddii ay timaado isaga wuu isbedelaya guriga dhan waa la isbedelaya ruuxaasi waa caadinayo laakiin waxaa taba gabar ii raadinayo gabar baan u baahanahay وريا امس جريان كل شيء كلابكس خمري قمار هو هذه سوق مدين مرة بعدين ما يلصق ور كوان كاسي هاي الله صعد دقنين تقاضو والله قصد مليس وحمو جرين يا لعقتين قصار إنه سو عشت لي ربان واي هي غور ما وحبره خمارك خسارة مويه فايدو كوما كينايو مد ذاك الهاي لابن قبرنا كل ضلته أنا waxaan kala walaay male sababta saaxiib adigoo kala haysta saaxiib ad amal qaf heesina sulwil mawlo baanamayno
انت وصعتانات وحيرك هذا وكو معنا ليك حاجة سوريسة مدة كان ليك سيجار أيوة والله. بالسينيا dhaqso ya akhi dhaqso dhinac u leexo dhinac u leexo nacas wuu dili ka waran شو ولي أكود لنا حتى ما أنا قعنتي إذا كود لا مسي قعنت هذا إيه سكوكور labada inay dhacdo looma baahna جيتا هل شهلين سي شو مع أخباري يا سو haddaba hadalkayga si fiican u dhegayso arrin halis ayaan ku hayaa babbanaan waad ogtahay xaaladiisa waad ka waraysaa micnaha sidoo kale wuxuu amar ku bixiyey maango in la suraadii gacanta lagu soo dhigo walaalkay shaac waako iska daa wuxuu doonaa sheego wuxuu doonaa sameeya aniga magaalkan uma imaan inaan ku dabarsado faqiirna maahe xooggayga ayaan maalanayaa laakiin ninkan mudankiisa ayaan marsiinaa babbanaacan ka wadaano kibirkiisaa batay cagaygaan hooskeenayaa waanu ku tusinayaa kibirkiisanaan jebiyo gacantaadu waan ku dhimanayaa laakiin ugu yaraan maango maxaa ku samaysayna ii sheegna ogaada ayaan doonayaa sashuu waa ogaanaysaa weliba goorrow ayay ku soo gaaraysaa akhbaarta waxaad ii sheegtay tallaabada xigta aan ku qaaqaayo nollaad ka hadlaysaa geem ahaan hataa cadowgii kuma cafiyo waa u sheeg walaal ninka hadalkaygu wuu maqli waaye gunaha walwal ayay hayaan hor anaaba kuu joogee maxaa la walwalaysaa soo kacaniyo soo baas walaal ii soo baas magacaaga waa baallaa soo maahana haddii aynu nahayna maxaad doonaysaa aalay runtii inaan ku garaac miyaad u baahda ayahay beela markaad cararaysay maarkinona adeegaaga aadu u boodboodayaan ku dhahay yaqi waxay baga heesaaba aniga waxaan boodboodaya inaan taabto dareenay ku fiiman kan yaqi daybal abo tu naga tagnaya dhegaysta akhyaaraya candhuuftaan oo kala yaqeeyo ayada haddaan wejiga ugu shubo bal sidee noqonaysaa hadda waxaa ayaad aabbaha kaligaa inuu ku dhalay gabar hadday kula dhalan lahayd waxaad ogaan lahayd dumarka sharafta ay leeyihiin dumar dambe agagaarkeed haddii aad ka agdhawaad iska jiryaa kalabiyo hey waa imaanaysa asxaabtina ayaa garaacaysa si fudud inaad iskaga baxda ciyaartaan midin ciyaara anigana war ninkan aabiis ma taqaana adig aabiis ma anigay weydiiyey hooyadiisaa joogtay horse weydiiyey horyaha kalab xumo lacagta aabiis oo shaqaysa ku faanaya taa laakiinse isla lacagta aabbaha ayaan kugu aasayaa midna ogow bushbaa waa aniga walaashay geesigan walaashiisa walaal noocoo u yahay ii sheeg bal isaga hooyaday markii laadaas wuu dhegaysanaa anigana sidoo kale markaa ula hadla wuu ibaadilayaa hooyo gunnaa qofku u gacan qaado habaaraa ku dhacay kaal raashinkaan jeclaa iim sameymyaa maya hookee waa kaa ogolaaday aniga kollejka sidee si wanaagsan oogu tagaa ii sheeg bal waxaa wanaagsan gabdhaha madaxooda hoose inay socdaan maxaa dhaca gabadhaha sidaas kuma tarbiyeen miya aamusee cuntada yaakhay ii sheegno sidee aniga ku aadaa gudaha inuu ku jiro inaa ii sheegta aa loo baahnaa hooy aniga qolkaygan galaaq waxaa akhrisa rawaaya
haddii naag lagugu daro shanshana u dhale remotkii dhib adoo weynaa kartoon daawee fiirsi qoto dheer leh oo galaya sacadkii gabarta haddii ku taageerto badbaadi haddii ka hor imaadana bis waa hooga ku bilaabaa miyuu daawano aniga qori haddiyaan ahay iidan waa midii cabaynaysa halo xagee joogtaan guriga rabiic ayaan joogaa aabbahe inuu kula kulmo ayuu rabaa adigana waxaan kaa rabaa sida nin tuuga kale inaadan u soo labisanin nin sharaf le iska soo dhigaan kudhaa labiskan iska soo sax haybideegii jecelkaa ku soo wacda mi ah ay socaysa u tag horniyoo jecelka dhibaatadu leeyahay wax ka moogida naga aamuseeqe aryaa qaxwadaan kuu shubay ma fuuqsatida aan dhinnax gabartayda shahaaday wadataa mudana midaas moogeen sidoo kale qof wax barato cilmi la waaye xafiisay ka shaqaysaa weliba hotel 5 star ay ka sii shaqaysaa mudane anigii midaas maanan ogeen laakiin xay kuugu taallaahe nuucaagoo kaloo mooryaana oo jadiifa oo jidku jira ay ii soo jeclaata asay rabtaa inaan ku daro boyntiga loo baahnaa hadda ayaad kaarisay saddexda boynti hore waxay anfaca maba ahaynba midda kale waxaan kuu sheegayaa gabadhaadii aniga waa isjecelnaa jacayl adagaa naga dhexeeya haddii adiga khilaaf yar aad soo dhex dhigtid jacaylkeena waxaad ogaanaysaa gabadhaada waddada inaan ka kaxaysanayo hadhow markay cunugii dhashana gurigan kuga casuumaa waad noo ducaynaysaa waa intaasoo keliya guurkii waxaad sheegaysid wax sidaa u dhib badan maba ahaba marka adiga gabadhaada waxaa kuu fiican si sharaf leh inaad gacanteeda aad u saartid midda kale marti walba guriga kuu timaada kafee iyo shaay iyo caano iyo waxaas inaad ismaa dadka qaar dabeecaddooda khamri iyo biir iyo waxaas ina cabaanay iska jecelyihiin soo maa marka dalabka kala ogooya okay ka qaado walaalka وريا العقد وعوريتو العقد انا نسيت العقد ما يا يا سامع هذا هي ميرا وريغي محمد مجرد ونسي انا دو توجي بورت ما جو ودين با وريتو سوق العقد وبيع ديارو لكن انت تو اسكان وعماي مو وريتو وريا العقد انا ديبتا لا غربا ديارو ديو لو لك بسان ديارو ديو ان كدا لكن وريتو جلتيلين ورت علم له وريا باستر يا تا سيده انا العقد انو دومن كرتانه waa lagu garaacaya si xuna lagu tumaa wali hadal wari lacagta way walaalka fiir halmidan ku sheega laba maalin kaliya si lacagtaad markii ana ku keenaa ku diyaar way mudane ninka warkiisa iska daaya madax ka jar ma wariya madaxa hadii aan ka jiro sidee aniga lacagteeda igu soo celinaysaane madaxaadan ba goynaa kabarnaa waan ka jaraa madaxa haddan ka goynaa laba maalin iska daayay hal maalin xitaa kuma siinayaan ku dhahay madaxaada meeshan ku soo afjaraya dafadaan u tuura waa ku dhamaatayaan ku dhahay ma ku tuwa sameeyay walaalka mangana xaaskiisa way kala kacsan tahay ku dhahay mangana ninkan xaaskiisa lee balmiyo maalin walba xaaskiisa inta u taga maaragtaan saadona aan ka yeelanayaa happy birthday to you Oya bester bata aniga miyaad i doqomeysanaysaan
mar walbo gacanteedu wasaq ay noqoto. walaal maxaa dhacayna mango waa la dilay yaa babanaa wuu soo socdaa ariyaha babanaayo wakhtigii waa la gaaray balse iminka xaaladdu dee farahayaga waabe ka baxdayba babanaa walaalkeena waa la dilay waxaan jeclaan lahaa sidaadoo kale inaan u noolaado karmalaa shuraaka ma noqonaa ani iyo adiga ii sheeg waraa maxaad idhahday waxaan ku dhahay shuraaka ma noqonaa marka hore maxaa dhahda hadalkii ku karmalaa mudana dhawariyaa adiga leefalkayga ma tiid markaad isoo gaarto ayaad magacaas iigu wici kartaa oo keliya hadda mudane oo keliya ayaad idhahaysaa mi fahamtay mase waa ku fahansiinaya orod qaado beesa ayaad jeceshahay waa mushaarkaad shaqaysatay wejigii ka leex xumaanta qaar run ahaanti farxad badan ayay leedahay in aan arko adigoo nool waxay ka dhigan tahay in aan ku tuso heerka aad taagan tahay meel ka sii sarayso in aan taaganahay laal karmalaa weligaaba daaha gadaashiisa ayaad ku dhuuman jirtay balse maanta wejigaaga bannaanka ayaad keentay yaa waa cidda kaa dambayso waad isku halaynaysaa adiga carruurta yarkaaheedoo agteeda ku soo koray misena gurigayga sida eeyihii hor fadhiyey ayaad iga kaxaysatay boqortooyo ayaad samaysatay laakiinse nin sidaas u haraya aniga ma ihi isla dadkaad kaxaysatay kuwa aad kaxaysatay ayaan kugu soo jeedinayaa waxaana dhici doonta maalin in ay lafahaaga isku dagaalaan haddaba wax walba waad fahamsan tahay soo ma okay ilaahay ha ku soo aruuray waan ku sugaya walaal waa ku bari aniga fasaxaysi ninkan meedkiis halkaan aan ku aaso mango waa la dilay iisoo ogow badeecadda halka ay taal walaalka situu maxaa ka sameynaa noo sheeg hadda iska daaha iska noolaaday eyga inta uu qaylinayo waxay ka dhigan tahay wuxuu diyaar u yahay in uu wax ugaarsado
haddaba ii soogow qofku ku tashanayo ninkaas waayahay taliya marka hore anaga ma haynin cadeen dadkaas aan ku soo xirno balse babanaha kooxdiisa qaar ka mid ah ayaa caddeeno noo haya iyagaana ku raad raacayna sabab la xiriirta saraakiisha sarsare ee musuqmaasuqa iyo weliba sameynta siyaasadda ayuu ninkaas anaga gacanteena ugu baxsanaya ninkii intaan kadib in la sii daaya maalin waa inaad soo xirtaa weliba sida ugu dhaqsiyaa badan waayaa taliya waxaan kuu ballan qaadayaa babanaha ninka la yidhaahda gacanta inaan ku soo dhigo awoodda sharciga waxay tahayna waan tusi doonaa haddaba sharcigana wuxuu diyaar u yahay babanaha qabrigiisa inaan qodno sariirta hoosteeda haddii aad ku dhimatay xitaa sharciga waa adigu aabbahaaga buuraha korkooda waa lagaa soo saaraya horta sidaa wada ogna wax walba qadar ayay ku dhacaan haddana sidaas ee taha ficlada xunxun halkan ayay ku soo dhammaadeen haddana xereg ayaa taha waa inaad annagana soo raacdaa soo soco soo socda soo raac horta wax walba waad sidaad sheegto waa ay qoran yihiin ereyadaas afkaaga kuma wanaagsan ma waxaad doonaysaa yunifoonka awooddiisa inaan ku tuso annagaba awood waan leenahay wax walbana waa la xumayn karaa hal amar oon bixiyo keliya halkan waxaa imaanaya dad badan awoodda babanaa uu leeyahayna markaas ayaad ogan doontaa isbatore haddii aad u baahan tahay babanaha korkiisa in ay gacantaada gaarto dhowr kilomitir waa in aad soo socotaa si aad babanaha korkiisa u taabato haddii aad aniga ii xirto xisbiga mucaaradka way dacwoonayaan xisbiga muxaafadkana cadaadis daran ayay adiga ku saarayaan ganacsigan aniga leeyahay siyaasiyiinta dhaxal ayay ku leeyihiin howlahayga nama celin karaan askari yunifoomkan aad wadato run ahaantii aad baan oga helay haddii aad adiga leedahay waajibaadkayga ayaan ku dhaqaaqayaa dhib ma lah haddii laakiin aniga aan isfahanno nolol qurux badan ayaad ku noolaanaysaa xataa gaashaanla waad noqonaysaa waryaha afaa ii boqsaan looma hadlo mar aniga gacan haddii aan kuu qaado waxaad ogaataa mar dambe inaan hadli doonin taasna aniga hadda waan awoodaa doqonkan ii soo kaxay waryaha maxaad tidhi ogolaanshaad jeelka ku geyso waad haysaa miyaana laakiin dee jeelku inuu amni yahay inaad hubiso miyaanay ahayn taliya ninka oobiga qoraay wuu dhintay ma noola shiri qof xabsiga gudihiisa haddii uu ku dhinto xabsiga ayaa lagu dilaa la dhahayaa sooma inta aadan xabsigii geenin ka hor naftaada badbaadi adiga looma baahna naftaada in aad kalifto si aad babbanaa gacanta ugu dhigto hana isku daalinin sida aniga qorsheeyey haddii wax walbuu dhici lahaayeen babbanaan saacaddan xabsiga ayuu ku dhex uri lahaa isaga taliya waxyaabaanoo idil siid iyo sabab u ah ciyaarta hadda ayay bilaaw tahay haddaba aan daawano ciyaarta siday u socoto sharciga markuu gacmaha gadaal uu marsado waxaad ogaataa ugu dambayn afka inuu ka shaqaynayo mii fahamta hadda kaal adiga dantaa leeda waa maxay jumlo ahaan ma ii qaadan rabtaa fiiri hal jumlo ereyada iigu hooye adi maxaa kaa qaldan horta aabbahay si xun ayaad uula hadashay nacas ayaana tahay dabeecadaada xun looma baahnay aabbahay hortiisa inaad ku soo bandhigtid dambe si qaldan haddaad ilaahaysa waa ku dharbaaxaya waryaa dabeecadda iyo tarbiyeenta aabbahaaga ka soo bara aniga xamaali furdoo kale maxay la dhaqmay okay hadda sidaas tahay baayaan ku dhahay aabbahay hadda si xun ula hadashay makuula joogayay horey
go-aanka labadeena ayuuna dhexeeya xiriirka mid saddex qofood ka dhexeeya maayo laba qofood oo keliyuu ka dhexeeya waana anigii adiga hadda kadibna ma sii soconayo maxaad ka wadaa waan soo afjarbaay kaalay aan soo afjarna maxaa ka wadaa wax walba halkan ay ku soo dhammaadeen waa micnaheeda hagaag iska bax dibna ha u soo jeesan aniga xitaa kalama jecli xiriirka naga dhexeeyna halkan aan ku soo afjarayaa hay lover soo hadal walaalka xilliga kiraaska xilli ayaa la gaaray aniga xitaa xilliga arrimaha soo afjar laa la gaaray kaal adiga weligaa jacayl ma samaysay walaalka aan weli wax ma jeclaanin naagta jeclaan sidee joogtaane laakiin koo saaxiibkii markan waa naag jeclaade haddaba asaga noo ballame hal dhalo shikilin noo soo qaad caawaan sheekaysanaynaa hay walaalka tartiib ahayn waa yaqay hay loofar cakuuska ashibnig dheh waryaa xilligiina lafislahayaa la joogaa abo maxaa sugaysaa daldal ka bax aniga baddeeda ka baxa adiga le marka hore badda asaas ma tiri anaa bilaabay dhegeyso walaalka hadduu marka ma arkin balaayo waay maxaa yeelay ma arkin qalbigaaga ay kaa jibinayaan sidoodaba dumarka ma arkin ayka marabaan dhaabac in loo geysta laakiin nimanka ma arkin way rabaan dhaabac inay geystaan ka warnay abo xanuunka jaceyl kale ka hadlooya ateeda kale yaqay jaceylku qabta qofkaasna waa si xoqaale ma arkin waayahay meel nabarka yaal adiga ma qodi kartaan xoq kartaa jaceylka saas camal waay niyadda iska jibiyaa ka bacdina waa fariisay waa ooy ku dhahay abo jaceylka كمان بالله أنيسو أفرحية فاضمة لما أنتي نلوشي ذا كعيارتين وقد بينا واقنا يا قيو بوسكي يا قيانتين هذا الكلام وحان كدر يمي وحياو بدن وقدا كجري إنو كوبا إنها السعودان لكن سقم رقابة كسي كوبا دلدل وقبوبي دك abo walaalka hal midaan kuu sheegaa digsiga ma arkin dabka waa lagu hee karaa laakiin birta canjeerada dabka ma lagu hee karaan waayahe marka haddii lagu heeya xitaa canjeera ma lagu dubi karaan ii sheeg be waa kasi kabacdi lacal haddii lagu duba canjeeradaas ma la cun karaan ii sheeg be maya waay ma oho ahaa beelo abo idhigeysa hal midaan rabaa inaa kuu sheega migaxnaaqiis mo dhalada intay ka faaruqeyso hadal afka wuu kuu furan yahay laakiin markay dhammaatana abo markay dhammaato anay saqaraanaan noqaa dhalada hadaa madaxa dhiftay waraa gabar ma arkinoona aniga dhala madax ig jibisay adoo booskayga sen ina dhala madax ig jibisay xanaqa suga idhageysa booso gabdhaha ma arkinoona yaqdo sida baakada siyaarka camal in lagu soo qoro ee siyaarka dilca waa limaha moona gabdhahana in la lagu soo qorano horta aniga ay jeed ma arkinoona gabdhaha baaritaan far badan aan ku sameeyaan ku dhahay biyadiyaan ka diyaariya hadafkeena waxa waay ma taqaanaan gabdhaha xunka inaga guuleysano awriyaha abakuuska galaaskayga everest noqday maxaa jiraan baasha ku shub yaqaysay waay ahaa fiiri gabdhaha qaar wiilashu waxay wahaystaan dabeel nalkane mar wuu ifaa marna waalida miyaa oo waa mugdi noloshana waa sidaas oo karne marna waa iftiin marna waa mugdi alla yahdiig abooso cajiibaan ku dhahay yaqayo nolosheeda ma arknoon markii igu horreysi waa yaqay adoo xikmad ku hadlaay aan ku arkay yaqay adiga waa ka baxsad maya aniga sidaas ma dhihin ereygaas rafiyaa qoray fiir waxaa ku warsaha rafiyaa waayne abwaan cusub miyaan ii sheeg maya saaxiibkayga igu dhow qofka dhereg iyo baahi ba wadaagaysiin ma arknoon qofkaasaa saaxiibkaaga dhabta marka annagana saaxiibkeena inaa wacan waa waraha kuusoo maxaa sugeyna dhaqsaan ku dhahay yaqay wac saaxiibkeena no dil suuriya ma rafiyo akuuski dhegeyso rafi iyo suuriyaab marknoon isku mid leewa magacyadooda waxay kala bedel yihiin male hey abi gunaaba ku soo wacay fiiriban arsaalintiga sar yaqay lacagta laga cunay inaa soo cishtar waa walaalkii rafi telefoon ma qaban waasi markuu waqtiga ku waxan yahay gabdhaha kaliya noloshaada kama fogaadaane rag saaxiibada xataa way kaa fogaanayaan mar kale wacbal babanaa waxaan gacanta ku dhigay buugga rajistaraha ee raggar gubta ninka u shaqeeyana goordhow gacanta ayaan ku soo dhigayaa waxaana ballan igu ah lugahaaga hoostooda inaad keeno waan kuu keenayaa kadib sida caadada eed buller ayaan ku dabaaldegaynaa walaal waryaa baastarkan ilaa uu ka hadlo qof bii sii kara haweeraatee ma jirto xitaa dhibic biile ma siin karo caafiiri kii meesha dhan buuqaska kiciyo lacagtana isdhiib waataa mara yaaqee walaalkii rabi waxaa leeyahay kolojka foodaska wadaa eegaas eegu dhali mar walba wuxuu rabaa kalaabkaas buuq inuu ka kiciyo balse maanta gacanta ayaan ku soo dhigayaa ina keena
إذا مسوي سوما أنا سيدو كلام وعينه ها ستايل كذا وينه حتى هديك سو هذا كمان يا أتشكلي كستوى هاري مركا إنا هذا وهذه كذا كان مأسيها إذا جالس يا قيو هذيك وحول بيكو سقرت إنك جوابتي دواينو أبوها warteeda kalena iyo midaan ku sheegaan ku dhahay anaga ma arkinoona baleey iska dhigayaan marka jecesha iiga waxay rabaan ku sameeyaan laakiin mar hadaa nacid ma arkinoona way ka tagayaan way ku gudanaysanayaan waxay rabaan ku sameeysanayaan xaaji kala laga raaca abow adigana marka ina waxdid ma ahana ku dhahay ha waa isbedel abow wicin boss awatna ya gabdhan google dhahay ma arkinoona maanta dhan ku soo wicisa ma arko sidoo fiirbe war google gal ma waa good girl magacaasna aniga oo baxayno agugugu inaska qornayaan uma leeyahay ateeda kale yaqayo 6 mar ilaa 3 mar camal ku soo wacd anigana laakiin waa ku jari maxaa yeel istinka iga qasiisno ay ma ku suubino abu halo bay oo abu halo adigu way maqluusa maanta dhan halo igu celcelinaya halo location ka ayaan ku soo share gareynaa 30 daqiiqo ku imo meeshan joogo halo maxaa dhahdana aniga inaad maqasho waan ogahay sida ugu dhaqsiyaha badan ku imo waa ku dheh ayaa abu aniga waa ku jeedaya ami qiyaan kartidaan ku dhaay waa loo wacay adiga waa dareemoyaa yaqayo adiga hadaartid iska baxaan ku dhaay dumaashidada soo qanci laakiin anaka meeshaan aan ku cabeynaa xaseebay asoo naga tagbe gabdhaha soconay kula hadlaya marka xigana meel kale kugu balamaan kala haddaa xiriirkeen waa soo afjaro ma dheheenin adiga waa rabay inaan afjaro laakiin qalbigayga ii diiday halkan aad igu wacdee maxaa daranoo jira ii sheeg 8 September waa adiga dhalashadaada waana maanta ma laga yaabo inaan xiiseeyo dabaaldega dhalashada waxna yuuna qasinno keliya anigii adiga jecelkeena aan u dabaaldegno waad aragtaa halkan ayuu jiifaasiga uu diiday inuu kacso ma aragtidna waan ku baryayaa kaalay la hadal kacsoo kuma lihina waan ku baryaa kaalay hey gunaa walaalkay kac waan ku baryaa waxaan ku ducaysanayaa si degdeg ah in lagu soo daayo meeshan waa ka soo bixi doontaa walaalaha ka welweyn okay
maanta laga bilaabo markino guna garaashka niitaada iska leh باسر كان سنية عوا إنو لتا imise jeer ayaan ku dhahay sigaarka ha cabbin saaxiibkay gunaah maalin waxaa la gaari doonaa u baahaysa sigaarka inaa cabtid intay nafta igu jirto midaas inay dhacdo macquul maaha dinni baabuu ayuu gacanta ku dhigay arrimahaaga ayuu la wadaagay hey golden باسر كان كبر ماذا أنا كيف كسنة لبدينا إن كان سان ودلا يكون راح يسدل كيسة ما أنا صاحبتني ماذا إلا هذا ما قرنا يسا كلب يو إلا صوحدي اللي جارة جانسي العقد هذا نقصي دياره وريا كلابك ما واحد ما لسه بلشة إنه هذيكو خسارة دي جلسة العقد هذا وينات بحساب العقد هذا مشانيتي وقدماتي جانس السيم كله يعني ولا شيء سمركنا في شوا وينه أو يدي ساب قدر ما كل كعسن تان عطا وكالي جانس أكره ديوا جا 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 هاي مي بالمنسة الله بدودنا وأباناي ولا شاذا إيو ولي بو هاي دادنا دغن هو رفي وريا مهم ما دلada qofka jabiye waxa muhiim ah dhalada qofka lagu duray iyo wilba midka ku duray bester ku dhale midkaadu waa balan bulera laga shida waa lagu dabaaldegaya soco wariya doqonyo soco iga tag wariya horta adiga gacantaada waa igu dish laakiin adigana usa gacantiis ku gudili doona bularka haddii ashidid markino dhimbilihiisa adee jirkaaga guwaya sida tu muhiima qofkii inuu qorsheeyo wuxuu dili lahaa balse qof walba dil kasta waa lala xisaabtamayaa la soco قناع cuntada kuleel waaye kaalo cashay wiilkayga wax alla waxaad jeceshahay samee laakiin ha samayn wax hooyadaa sumcaddeeda iyo sharafteeda hoos u dhigaayo fursadda uu ku badbaadayo aad bay u hoosaysaa dani ma awoodo adigoo nafta kaa sii bixaysa inaan ku eego
balse qofkii xaaladdan ku soo istaajiyey balan waxaa igu ah inuusan iga badbaadin nabad ku naso labada gacmo baabuu waa inaad baabi'isaa ugu yaraan markaas wuu ku soo raadinayaa inta uusan adiguse ku soo raadinin waa inaan kow ka siinaa mii fahanti hadda waa fahmay gunnaa fursaddan ha iska beerdareenin ayaan ku dhahay ciyaar aan fahansanin ayaa socota dekadda ayuu la wareegay kadib maango markii uu dilay annaga middaas waan fahmi weyn si tartiiba ayuu haddana wuxuu u dilay finnii taana sidoo kale waan fahmi weyna annaga ciyaar aan fahansanin ayaa gudahan ka socota waa kuma shiri halo mudane gaariga waa lagu keenay walaalka gaariga waa la keenay maanta waa salaasa waana maalin wanaagsan oo musharkii baa la qaatay u sheeg keligay inaan u tagayo weliba aan gaariga gacanteeda ku soo kaxaysan walaalkaa gaariga soo doonanayo waayahay mudane gunnaa babbanaa wuu soo baxay gunnaa gaariga asbuuc kadib in la keeno ayaan isku ogay waa maxay sidaan kadiskaa loogu keenay waa wakhtigaad la kulmi lahayd ninkii adiga laguu ballamiyey waana salaaso sidaa wogow u sheeg gaariga keligay inaan soo kaxaysan walaalka keligiisaa gaariga soo doonanaya
waan ogaa in aad i soo raadi doontid adiga sidaa darteed aniga ayaaba kuu imid waan ku koray aniga ciyaartan daroogada iyo weliba kiimikada warkeedan si fiican u aqaana dhig walboo bannaanka yimaado waxaa jira sheeko ka dambaysa anna sheekadaas inaan dhegaysto wakhti uma hayo hawalwalin adiga goordhow waan ku dilaya balaakiye waa ammaanlaydayda aan dunida ugu jeclahay adigana waxaad ka mid tahay dadka aan dunida ugu jeclahay waan ku farxi lahaa haddii aan 100 carruur dhali lahaa xitaa haddii aan dhali lahayn waan ku farxi lahaa aabi qorshaha wuu fashilmay war haddii dibadda laga ogaaday baabaa in nolol lagu sii daayey ganacsigayagu mid soconaya maaha waa xaqiiqaan ku leeyahy ninkaasi inuu dhintaa war haydhameedkiisaan doonaya inaan arko ciidan iyo cid alle ciddaa doonto kaxayso balse ii keen walaal waa ku baryaa haydilin walaal baryaa asmeenin walaal aniga waxba ma sameynin waa ku baryan iska siidaa ani saaxiibkeen waxba ma sameynin waa ku baryaa walaal waa ku baryaa walaal waa ku saaxiib maxaa ku dhacay walaal oo jeeda walaalkii saaxiibkeyga wax ogaade waxba u dhacay muxuu ahaa haa bahashaan waa bahasha keliya dunida aan ugu jeclaya haddama wuxuu ku dhahay qofka keliya dunida aan ugu jeclaya ayaa tahay saaxiibkaaga hore siduu yahayna calaamadda wejigaaga lagu sabro waa aragtay saaxiibkaagana sidaanu ku baqay waryaa fursad weynaa gacantaada ku jirtay fursadaas waa iska baabiis maxaa si kaa qaldan ii sheeg waryaa yaa tahay markaad aniga igu qeelinaysid
kan waa bistooladii dadka aan jeclaha loogu talagalay adna waxaad ka mid tahay dadka ifka saaran aan ugu necbahay maangaabkii xalay wuxuu ka warhayay siduu dagaalka ku bilowdo keliya balse aniga waxaan aqaanaa sida dagaalka loo bilaabo iyo sidoo kale sida loo soo afjiro aniga fursadaha qaar waa iska beerdarayn karaa laakiin babanaha inuu dhinto iskama beerdarayna waa go'aanaan gaaray jid ninkan fursaddeena uu naga beerdareeyey ninkaasna weerar ayuu soo qaadayaa intuu kunnaa weeri lahay waa inaan qabtaa aniga gunnaa babbanaa haddeertaan libaax dhaawacee waaye anaga libaaxaas godkiisa ayaanba ugu galay laakiin mararka qaar libaaxa codkiisa sida bisadiyo kale ayuu noqdaa isagana sidaasoo kale ayuu noqday waxaa la gaaray wakhtigii adigu waa dhuuma laheed haasho geerida babanaha way soo dhowdahay qoryihii meydkiisa lagu shida lahaana mar hore ayaa la diyaargareeyey horta waxaan waaye hal codsiyaan wata aniga ninkaas horta laf dhuntaagan ugu noqda gabarteydii uu ka dhamaalaya haddaad qamarji tahay gabartayow iga soo ag wareegin minaa rabta dil saa rabta ka yeel gunnaa saaxiibadaada ku soo wicayso xaggii joogtaana soo hadal aniga intaan joogaaye meel walbood adiga aad joogto waan ku baryayaa caawa ila kulan waayahe jar taleefonka kaale hadda waxaan muhiim yahay maadisa gabadhan waraa adiga jacayl waxba kama taqaanidee godadkaa ku dhuumataa sida babanaha jacaylkeeda uu dhab iiga yahay ayuu gabadhan jacaylkaana oo ay dhab u yahay yaa asbixi mahoo kan walaalka inta maxaa ka soo doontine kaale intasaa ku timidno kamalaa milaa cikaafiyo kawsar dhammaantooda maarklana waa kuwaasa xaggee fadhiyaan yaaqee saaxiiboo dhiil fiicanaa ku dhifatee ii sheeg yaa ka dooratana maya abow aniga doorasho ma samaynan yaaqeese wax ii kaa an ii doorteenno abow yaa jeclaha meeshaan fiiribe gabdhaha dhan yaaqee walaalkooda iga dhigteen aniga fiicanaad samaysaan laakiin gabdhaha si xun in loo gala maaha waa in laga faa'iidaystaa sida reerka loo dhisan lahaa waaw cajiib la kala cajiib banaa yaaqeeyo hadalkaaga wax baan ka qaatay aniga waxay socon dhab ma tagti hey ilaaha kaa weyn anoo rabaa been ina sugu afuufay ayaa shidantaa walaa aniga hore uma aanan cabsan jirin laakiin hadda cabsiya ay soo gashay adiga hore waxaad ugu dhaaratay babanaa inaad dilaysid aabbaheena babanaa ayuu u tagay si weliba adiga laguu dilo aniga la'aantaada ma noolaan kari hawni akhe dumar oynays aniga indhahan ku arka malihi nin walba horumar gaarayna horumarkiisa dumar unbaa ka dambaysa wiilasha inta badan waxay ka fikiraan saaxiibadooda maalin un inay khiyaano ku samayso balse aniga ayaad cimridheerihii tegaysaa maaha hadda kadib wadda aan kaaga tegi kara mau jirtaba hooyaday baan ku dhaartay gunnaagaan ku horfadhiyay wuxuu kaa ballanqaadayaa noloshaada intikaarta
رامو ويلكي أنا دور جرا كوجا وعن إسكتايا كودا ويلكي مع إسكتي واسوعن ويلكي سوكا وكبريا سوكا عندك لغات باغا كوجا ويلكي وكبريا ما هسه ماشي وحن إسكتاف سوكو ملياني ما حسوا نسا ويلكي وكبريا سوكا باغا ويلكي بابو وكبريا ويلكي برضو عامو نقصنا أنا كان إسكتي كده وكبريا أسميني مدان وكبريا بابو وكبريا ويلكي بدبادي أنت وياه أنت بسوك waxaa u malaysaa degdeg inay ku dhasheen waxay la mid tahay noloshooda baabuurtii tartanka iyagoo ku safraayoo kale mar ganacsiga haddii uu guulaysto hubaal macmiil wuu yeelanaya ganacsadahana alaabta in la iibsado waa u muhiim adiga walaalkaa balaayadan haddii aadan ka reebi karin aniga macmiilkayga ma celin karo ilaan canshuur ayaa i sugaysa ay dhegayso aniga nin xun waan ahaan jiray ilaa iyo haddana kii xumaa un ayaan ah sanooyin badan qalbigaaga necab haddii uu ku jiray waxaad sugaysaa wakhtiga saxda ah waxaadna isku dayda hore inaad u celiso albaabkayga fura baliis albaabkayga fura kadib ma taagnaa kara aniga iga fura albaabkayga fura laakiin isaga madax adayga aad daroogada uga ilaalisay aniga xataa wuu iigu jiray waana kaaga mahadcelinayaa middaas haddaba ii sheega hubka aad diyaarsatay aawe naboleon bonaparte wuxuu leeyahay awood adduunka idil ugu guulaysan karo haddaba waxaad ogaataa yurubo idil asaga ayaa maamulo waxaana laga yaabaa waddan yar gadaal inuu ka soo weeraro isbaanishkan oo iska indhatiro laakiin wax walbo isagoo iska indhatir misna uu yaraystay ugu dambeyn isbaanishka ayaa dili doono asaga ayuu u dhashay noloshiisana isaga ayaa dhammaynayo sheeko wanaagsan ayaad iiga sheekaysay naboleon apartment ma dhahday haye aawe haddaba ii sheeg bal qofkii anigii maandhow meedkiisa halka aad ka soo qaaday adiguse halkaas ayuu jiraa shiri orod sbiikar soo qabo markaas ninka isaga istaan ka dhigay waan ku qasbanahay khamri lakabiisa inaan siiyo orod soo qabo Goodbye, Sishu. sisho libaaxaas godkiisa ayaan hadda goor ugu tegay mala socdaa walaalkay meedka ma gubtidoyaad noloshiisa si fiican aa u taqaanaa soo maa dhaqso maxaad sugaysaa maa gubti marka adiguse babanaa wiil buu dhalay
ileen aniga mas ayaan korsanayay aan faraqa ku haystay inaad ii sheegtaan ayay ahayd haddii aad mar hore ii sheegi lahaydeen maskan caanahan siinayo ayaan sun ugu dari lahaa gunnaa anaga fursad noomuusan ahayn ee wuxuu noo ahaa maqaalintaan wax ku dabaynay ma fahanti hogow dhibic walba oo dhiigoo daata sheeka ayay leedahay maalintaasna sheekadeeda inaad dhegaysato diyaar mu ahayn balse haddeertaan soo maaha i dhegayso anaa kaaga sheekaynayo si lagu arko 7 qalcadood waa in loo soo dhaafaa si korkaaga loo taabtana 7 jeer waa in loo dhashaa soo ma dhihin hadda kahor adiga qofka korkaaga raba inuu taabto hal nolol kuma filna miya aniga miyay qof mugdiga ku hoos dhashay sidiisa bannaanba hifkana waxaannu saaranahay ilaa hadda nafteeda ammaankeeda aan u sugayaa inaan dadku caddeeya aabbaheynaa tahay hooyo qaladka waa aabbahay geystay aniga maxaa leegu ciqaabayaana munay dhegayso si walbad aniga aad ii bariso adiga hooyadaa waxaad la kulmaysaa mataqaanaa xilliga aabbaha meydkiisa la gubaayo oo keliya أنا كان ويلكيجا عاي دافي أخبار وانا ويلكيجا يدقيسو لو ما بحنا دقي سكول كنا ديديد محدود ديدي سبب وإذا واحد كليه يكوسين كرتو أيه وحبرشو أو كليه عبرتي قال عن كده سكول مروان دت كده أن مركنه ويعاوي أنا وحرو قف إن قراع بكرتو ما كده عبرتي قال أبي قف حمس أي شيء كده عبرتي أي شيء أنا كتو أبي قف حمس أذكر محي وعاوي أبا سامحي دوين wiilkayga si qofka bini'aadanka uu nolol qurux badan ugu noolaado waa inuu go'aansadaa si walbay ahaataba go'aanka isagaa laga rabaa barbati aniga go'aan waan gaaray hadda wixii ka dambeeyay xumaanoo dhan waan ka tegay waana ka tanaasul iska jir wariyaa ha soo gelin gurigayga cagahaagana ha soo saarin waabad naga tagtee maxay tahay sababta aad noogu soo noqotay hadda maxaa dhacay barbati wakhtigaan xumaa orod iska baxay ay dhahday markaan soo laabtay anigoo qof wanaagsan ma sidii ayaad weli ii cadaadinaysaane soo gali ma dhehaysid barbati markan khaladkayga waan fahmay hal maroo keliya iska kay cafi balan waxaan kaaga qaaday haddii aad cafiso adiga iyo wiilkaagaba noloshiina in aan ogaan doono fishwaa kaale wiilkayga wiilkayga britfi ayaan ku dhaartay hadda wixii ka dambeeya daacadnimaan ku noolaanaya waa ku barayaa hal fursadoo keliyaysii barbati waa ku barayaa fursadiisii kani waa 10 jirka fishno
wiilkayga mid ogow hadda kadib ciddii magacaaga ku weydiiso fashwaa ma noqonayo ee magacaaga wuxuu noqonayaa mataqaanaa gunna oo keliya hal mid kale aan kuugu daree waa farqiga u dhexeeya xumaanta ma wiilkaygii war wiilkayga ma waa mid luuq mugdiyo ku dhashay iyo waqtiga iska luuminan u sheeg maadaama babanaha xabsiga dhexdeeda qof uu ku dilay waa la iqaawo 6 bilood oo xabsi ayaan galay aniga ganaaxana waan soo dhammaystay shaqada dib ayaan ugu soo biiray gunnaa runtii aniga wakhti dheer ayaan soo murugoonayay ereyga booliisku waa calaamad oo keliya yunifoonka muxuu qabanayaa babanaha oo noocaas u yaalo haddii anagoo noo talinayo booliskan siduu doono uu ka yeelanayo isbatoor adiga yunifoomkaaga lee xirnaaw waajibaadka soomaa anaa gudanaya dhalinyaro hadalkayga si fiican u dhegaysta laga bilaabo maanta waxaa loo baahan yahay khaladkiina iska ilaalisaan hore haddii aad khalad u soo samaysanne waa inaad dib u saxdaan si bulshadaad hoggaan u noqotaan dhalinyarta hadda soo baxa ayaa tihiin hoggaanka dalka waa inaad haysaan berita mustaqbalka dalka ayaad noqonaysaan oo qabsiyaarkii mudan waxa waaye aad waxaa ka hadlaysa uma dadka khaladka geysta awaaniyeysa laakiin aan khalad ma geysaninbe haddiiba khalad geysanin macaliga waaniya mii sheegi kartaa ayaa kamabanaha yarkiismo wiilkiisa aan solo fiir markinoo kiis bug ee dusha laga saar maxaa ka rabtaa bacra la geliye ugu dambeyn adiguse halkan waad imaaday shaqo fiican ayaa qabatay mar walbana waxaan ku leeyahay cadaaladda ha sarayso way guulaysanaysaa khalad yar haddii uu kaa dhaco taas micneheeda waxay tahay webi aduu ku quusaysay maadaama aysan ogeyn cidda adigu aad tahay ciyaartaada si fiican ay ogyihiin balse haddartaan wixii ka dambeeya waa ina taxdirkaaga u bata adiga isku badnaaw cabsida way iga dhammaata aniga hadda iyo wixii ka dambeeyana lagama yaabo aabbe inaan ka cabsado gunnaa waan ku jeclahay dhehno jacaylkayga inayga ayay kaaga muuqdaan soo maaha nolosheeda inta kaarsan waxaan kuu ballanqaadayaa sidan inaan kuu jeclaado ahay daaqadan kaa soo fiirinayaa meel ha aadin bartaada taagnow شيشو maxaa kugu dhacay شيشو guna badbaad شيشو maxaa kugu dhacay شيشو ila hadal nacab ka dhaxeeya wiil iyo aabihiisa wiilkana aabihiisa ayuu u dhameeyey maxaad markaa aniga ii celisay booskayga waan ugu ari lahaa sababtaad ii celisay maxay tahay in aniga ii sheeg hadal adigaan ku weydiinaya ii sheeg maxaad iga celisay aniga waan ugu ari lahaa arkaranaayo anigu balan baan qaaday niyow qof walba goobjoog ayuu ahaa shiiri nin noocan oo kale hore umaan arkin shiiri hooyada dhulka xataa way ka samar badan tahay aniga xataa wiil ayaan dhalay wax walbay ahaataba babanaayow anigu waxaa kuu sheegayaa wakhtigii la gaadhay halkan inuu dhiig daadiyo keliya muusan imaan shiiri ee wuxuu u yimid taariikh hore in uu baaro lacalla aniga haddii aad dhinto yuusan kaa badbaadinaysan
ii ballanqaad isagoo keliya maahane macal familkiisa inaadan halka reebeen dhulku waa u wareegaa qof walbana dunida meel walbuu kaga nool yahay 24 saacadood oo keliya ayuu haystaa annaga meel walba ninkaa waannu ka soo saari karnaa kolka aad soo qabato ayaad booskaaga u aari kartaa waryaa shishu maxaa kugu dhacay shishu ila hadal dad sidaan kuu galay shishu ila hadal shishu markiino shishu hidamaysa hadal ya warba bannaa marba haddii ay ka boodday waay baanu dagaalamaynaa annagu waanu inaannu is-afgarad samaynaa oo aannu midownaa adiguna waxaa lagaa doonayaa hoggaamiyaha ganacsiga inaad noqoto gunnaayow maxaad ka leeday runtii waxaan isdhahayay iyo waxa iga hor yimid laba kala duwan waaye anigu waxaan isdhahayay ninkaani argudsi ayuu nafta isaga ka qaadayaa siduu adiga kaaga argudsalaya laakiinse haddaad codsiyaad ii weydiisanaysaa kollayba aniga nin ganacsado weynaana magaalkao dhanna waa laiga yaqaanaa haddaaba doonaysid aniga inaad shirka ila noqoto waa inuu gunnaa dhintaa maxaa yeelay gunnaa intuu noolyahay aniga adiga shirka ma kaas anigoo keliya igu daaya anigaa cadcad u jari doono oo ka aari doono wax walba uu sameeyin anigaa ka matadji doono oo dhegtii afka ka keeni doono ariyaa karilaayow kaa joogintaasaa ku filan intuu karilaa ka imanayo hana neefsadeedda gunnaa hey gunnaa waay gunnaa asaga waay gunnaa may sidaasaniin dunidaaga waad leenayn hayga cabsisiin waa ku baryayaa sishu ariyaa gunnaayow maxaa ku helay si dhaqsiyaad keli ku noqotee iminka haddaad mididkan asturto berri subaxna mid kalaad asturi dee adaa saaxiibba samaystee dulqaado horbaasiriyo nolol haddaan kugu sii daaya waxba libaaxayn iyo faataabakha noola iman baa ku hor iminka sishuu baad gubtay soo maa goldan iyo midka kale laxdaa inaad gubtana soo diyaari maltaawa goldan ay israaceen hay saaxiib maxay tahay sababta halkan ii keentayna anigaa kuu sheegaya xal waan ku siinayaa ariyaa goldan fursad dahabiya ayaa ku soo martay haddaad doonayso ninkaa booskiisa inaad gasho ha ka labalabayn waa inaad baanta racjasha dhaafisaa may saaxiib haasimaani godob ha idilin waa ku baryaa goldan soo hadal garaashka ayaan kugu sugaya waan cabsanaya dhaqso soo kaale adiga meel ha u dhaqaaqin meeshaada anaa kugu imaanayo gunna booter hortayda ayaa lagu dilay anigoo fiirsanaya ayaa la dilay kawaya ka siiya aniga waxba waanu qaban waayey waxa waanu tari waayey aniga saaxib idhigaysa aniga inaad dunidii wadlaysid ma doonayo balse adiga meeshaan ha ka soo bixin weceladaas qalad walbay geesteen anigaa ka jaasinayo okay xabsida iska daa adiga anaa kula jiro
قناع shiri gunaa xaggiinna ayuu soo socdaa idinkoo diyaarsanayn hadduu ninkaasi idin soo gaaro la socda dhammaantiin wuu idin baabiinayaa waa inaad isdifaacdaan Hey! Hey! Warrior Guno! waniyow si wacan ii dhegayso anigu waxaan kuu sheegayaa dhaxalkii aabbaha inuu yahay mid kuu yaalla sidoo kale waxaan arkayaa inaad adigu leedahay awood aad iyo aad u sarraysa oo aan la celin karinba laakiin waxaan kuu sheegayaa dhimashaa lagu argudaa sidaa darteed maadaama shishuu uu kii kale u dhigmo iminka waxaa la isweydiinayaa babannaa ciddii u dhigmi lahayd ilaan xisaabihii aan isku bixinay babannaa baa ka saaray shirri ow aniga ayaa kuu sheegayo midda koowaad waa canugan hooyadiisa tan labaadna waa ganacsigeenna aniga waan ogaay canugan inuu khiyaanolo yahay misena oo anaga naga khiyaanayo sidaas ay tahay meelaan wax ku ogaaday haddii uu aniga badeecadayda iigu keeni waayo 5 daqiiqo hooyadiis ayaan lisayaa beenna ma sheegayo nin waxaan ahay hadalka uu sheegaya ka dhabeeyo orod badeecadayda ii keen haddii kale dhimashada hooyada ayaad markhaati ka noqonaysaa cid iiga badbaadinaysana mala hooyada waan kuu digi digniinteedana waa inaad qaadataa wiiliyo
ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀನ್ ನನ್ ಮಾಲ್ ತರಲೇಬೇಕು. ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ. macaan waa ku dhammaaday. hooyo gacanteeda ay fadhisa ayaa karisay, laakiinse maxay kuugu taallaa? waxay dhashay wiil idab daran oo dadka waaweyn ku soo warcelinayo. aniga cunto noocaan oo kale ah marba ayaa igu dambaysay, habarteed ay xasuusiseen. hay weligaa ma ii samaynaysaa cunto noocaan oo kale ah? maxaa dhacay dhadhankeeda kama aadan fahmin miya? sunayaan ku daray. waxba ha baqin, hana welwelin. aniga hal wiil oo kaliya ii joogo, mar walbana cunto macaan in aan siiyo waan caadaystay. si nabad leh cuntadaada isaga cun. aniga waad og tahay wiilkayga in uu xiran yahay, laakiin haddeerto xabsiga sababtooda ugu jiro adiga inaad ogaatid ma doonaysaa oo diyaar ma u tahayna? waan kuu sheegayaa, dhegayso. mudane waan ku baryayaa yaaqay, wiilkayga aabbihiis hal shaqo oo nadiifa leh ii siiyey. aniga ma rabi inaan sidaan ku sii noolaano, bas keliya waxaan u baahanahay shaqo nadiifa inaad ii siiso. horta fiir xaalad adagaan ku jira, darawalkaana ujeedi markino waa koow anis isuwo saddexdan gabdhana inaa ka xayaa liga rabo. waa ku tuuwa wareer maskaxda iga qasi anaa isku dhaxyacsan shaqa maaya iga tag yaaq. mudane adigaba haddii aa ogolaato si nabad leh ayaan meeshaas kugu geynaya, waanu kugu soo celinaya. keliya waxaad samaysaa shaqadan iyo ogolow mudane. waryaa doqonyo maandooriyaana lagu qabto anaga sid weliba isagoo sirtiis waxyaabaha kale isticmaalo ma fahanti. 2 maalmo gudahood badeecadan haddii aan meel ku qarin weyn waxaad ogataa inaanu dhammaan doonto wax walba la ogaanayo. war naga aamusa doqomaya. sid saddexdeennaba isku mid ayuu naga dhigay sooma. cadowgaaga markii aad u baahan tahay in aad ugaarsato keliya waa in aad fiirisaa meesha uu ka jilicsan yahay. qiimahan khasaaranna saraakiisha ayaa bixin doona, sababtoo ah qof walba meel ayuu ka jilicsan yahay. gabdhaha yar ka waran, gabdhaha yar haddii aan ku wareejin waxaad ogaataa heshiiskii inoo ogolaanaya. su-aasha waxay tahay gabadha yaryar xaggee laga keenayaa? barbati babanaha maskaxdaada caadi maaha. ha sameynii sida waayahay kabaran bal haddii gabdha ay wax ku dhacaan badbaadadooda waxba nagama gelin, muhiimadda waa dhimashadooda. maya fursad ayaa la yidhaahdaa. budur waa kutuwa budur badbaadi budur kutuwa badbaadi. qofkii qoorteyda qabanaya bal fiiriya lugahayga ayuu haystaa, tanoo kalena fursad ayaa la yidhaahdaa. saraakiisha ma aragtay kuwa waxbad aan ka laabanin laaluush marna uma qaataan, marka arrintan qof qiimo leh dush inaan ka saarno weeyaan. xali adiga
lacagta laba meel waa inaan u kala qaybinaa kuwan boorsada ha la geliyo lacag fara badan waatana waa haynaa haddii kadib wixii laga bilaabo adigaa boos noo ah adigaan ka amar qaadi doonaa waryaa xaraami oo saqajaanka ee 3 gabar masaakiina ayaad u dishay si aad lacag u heshid lacagtan wasaqda eh ma aqaan wax naga soo doontay anaga inta nadiif ka fogay nolosheena way qurux badneed nolol nadiif aan ku nooleen maxay tahay sababtaad noogu soo noqotay ii sheeg maxaad noogu soo laabatay maxaa kugu soo celiyay nolosheena waryaa jooji barbati kale lacagta waa la soo dhacmaya ku qorana war gaajada ku hayso waxaa lagu hal lacagtan haddii la soo dhacay haddii kale lacag waa lacag waxyaabahan aad samaynaysid ma lacag xun darteed ayaad u samaynaysaane qalad weyn ayaad ku jirtaa oo weliba dembi ah laakiin ciqaab la'aan ma kugu dhacayso barbati kale boqortooyadan aad arkayso in muddo ayaan dhisay adigana waxaad doonaysaa si fudud in aad ku burburiso soomaali laakiin wax ku soconayo maata waa inaan ku dila naab oo ku tuwa horteesiida maxaa ku haysataa wax walba anaa ku sameeya oo ku tuwa horteesiida iska dhaaf oo ku tuwa anaa ku sameeya anaa ku sameeya hadalkayga ma qaadanaysa diyaar waaya xabsi ma gelaysaa maya dheh wiilkayga ha yeelin maya dheh iska diid waa ku baryaa biliis xabsi waa galaan hey mambo kiiskii isaga wiilka waa in aad dusha ka saartaa isagaa xabsiga gelaya maamadana bannaanka ayay joogaysaa kadib way aamusa bishwa wiilkayga aabixin hooyo waa ku baryaa wiilkayga ha yeelin aamus istira mashiino yahay ma waxaad rabtaa wiilkaaga si nabad leh inuu xabsiga ugu jiro mise waxaad doonaysaa tallaabo dheeriya in aan qaado isku xisho waryaa doqonyo wiilkaaga ayaad rabtaa xabsi inaad gelisid aabbana waxay tahay adi haya barbati kaale wiilkaaga markii uu kuu dhalinaya ninkaaga ma joogayna mideeda kale cunugaaga wakhtiguu soconayo ama gurgurashaalka uu bilaabaya guriga cidlo soo ma ahayn cidladaas ayaan kuugu imaanaya anigoo sheeka isdafaa aan kuugu samaynaya kadibna adiga wadafa ahaan ayaad ii qaabilaysay oo wax walba saasay ku dhammaaday marka isdeji hadda sidaa darteed ma hubo wiilkayga inuu yahay haye wiilkayga miya okay dhegaysa haddaba ha iloowin 3 gabdhood sidaan u gubay si la mida adiga wiilkaaga inaan idiin gubi karo farxad badan ayaad dareemaysaa markii aad adiga xumaanta ku dhex nooshahay markaas kadib aniga go'aan waxaan ku gaaray mataqaanaa wiilkayga 3daas xaaraami gacantiisa in uu kow uga siiyo al ultimana gacantiisa ayuu ku dilay adiga waxaad la yaaban tahay soo ma ahanne wiilkayga aabbihii siduu u dilay oo weliba gacantiisa ugu ciqaabay soo ma ahanne misna gacantiisa ugu gubay laakiin kaas aabba oo keliya afka ayuu ka ahaa waxaad ogaataa wiilkayga waxa uu sameeyey inuu ku saxsanaa waayo qofka haddii uusan waalidnimada istaahilin wax faa'iido ma leh laakiin aniga wiilkayga calooshayda ayaan ku soo qaaday anigaa dhalay marnaa waa wiilkayga xalaasha ah xalaal ayaana ku dhalay ogow taas wiilkayga aniga balantii uu iga qaaday xaqiiqatan waa uu ii oofiyey balse hadda wiilkayga indhihiisa waxaa iiga muuqda mataqaanaa sida naxariis darrada leh ee adiga uu kuu dili doono aabbis nu nix waay maa kuu naxayaaday waryada yaa ku dhahay dareenka hooyo uu shaqaynayaa ha wiilkayga aniga amarkayga waa uu qaadanayaa maxaa yeele aniga ayaa dhalay waa wiilkayga aryahay gurnaha hadduu yimaado dekedda bangaloor waxaa kaa doonayaa gebi ahaantiiba sheekadiisa inaad soo afjarto haddaad taa yeeli weyda qiimahan isaga duldhigay inantaadan duldhigay aada reema tirtid si walba adiga rishadaad u taabato bastooladaada kuma jirto xabad awood leh oo jirkay ka dhex baxayso yaa nin waxaa sameeyaa
manaa ku dhaafa gabadhaa layga dila ilaa naftay ku jirto gabadhaada lagama yaabo cid jirkeeda garaafyar gaarsiin karta gabadhaada oo kaliya maa qoftaas ogow anigan iyo jacaylkayga inay tahay arigaa gurnaa iska kii cafi waalid wax dhalaanaya kollayba hooyaad tahay dareen ayaad leedahay canugaaga xanuunkiisane waa adiga xanuunkaaga waa inaad canugaaga wax fahansiidaa raadkaygaa ka haro haddii kale u ka shalaynaa halow walaal gurnaa degada ayuu joogaa habaryay waayeesha adiga wiilkaaga isku mid ayaa tihin doqonnimada oo ku dhaqmayana adiga ayaa ku soo barbaariyey soo maa laakiin aniga ima taqaanid liishaa la yidhaahdaa waan u dhammaynayaa canugaaga waxaana tusayaa nolosha silacaa inay tahay baddaa laga ducaysto waan dilayaa adigoo indhahaaga shantaya adigana waan ku kaxaysanaa ilaan odayga waa dhintee waan ku dumaalayaa soo sac hooyadee daa adiga Guna! Maya! Maya! heshiiskaad adiga ii soo bandhigtay intaan ayuu ku egyahay u dhammay dadkan maxaa sugaysaa aryaa sitiyo magaalada ha ka tegin baa kule mideeda kale dulsaarkana waan ku siinayaa dee adigu waxaad tiri somaa mid faataa baklo hadal badan baa ti laakiin waxaan qaban karaa anaa ku tusaya dee Guna Sidaya wariga faqona wiilkayga Guna Sida wiilkayga Sida adi maxay u dhigan tahay Hey Golden Hey maxaa waxaan Guna wiilkayga Guna dhabarka ka dalooli ninka niyow dhabarka ka dalooli ayuu ii dhahay ka waran balse saaxiibtinimada waxay sheegaysaa kan qalbigayna ka dalooliyey Maya Maya gunaa waan u tegay sidaad ii sheegtay baatar soo dilayay dheheen cadowgana isha ayay nagu hayaan cadowga intay isha anaga nagu hayaan qaab kale oo cusub waa inaan u degnaa adiga baantar naga dil dhaqso Golden banter ma dili doonaana aniga awood aad igu dishid weligaa ma lahayn hada kadibna ma yeelanaysid waxaa garatay maa horyaa asxaabteeda qaybo ka mid a waad khiyaamaysay khiyaano waa ku dishay kuwana anigaad igu soo ifisay laakiinse adiga maba taqaanidba dadka sida loo khiyaamay khiyaanadu waxay tahay aniga hadda ayaa ku tusaayo bamana
كنا ورياضة جوجية واحد كم يسوى بضيعة عديدة ورانيga amar la'aanteeda cid xabad ridi karta haba yaraatee malan way idin dilaya dhammaantiina صعب aabahaaga aniga ayuu i qiyaanay adigana aniga ayda qiyaantay marka khiyaanada ma isku dhasheen kollayba maanta gacanteeda ayaad ku jirta oo ma badbaadaysid lagama yaabo dunidan ceesh dambe inaad ka cunto aniga ayaa sanjo kugu wado dunida kaa musaafurinayo waan ogahay khiyaanadaada inay abka ab tahay laakiin maanta aniga ayaa ka dambeeya maxaad samaynaysaa dadka waaweyn waxaa loogu talagalay xumaanta inay ka hortagaan balse adiga xumaatada adaabaa u waraaye hadda iqaabtaada adiga lay gacantaada isku marsiiye sidoo kale noocaaga inaan gacanteeda ku ciqaabo maba doonayoba
babbanaa howshiisu ay soo dhammaatay badeecada goormay nagu soo wareejinaya aniga hooyada ayaan ballan ka qaaday wiilkayga ballan iga qaad hooyadaadii ku dhashay ballan ka qaad inaad xumaanoo idil baabi'in doonto wanaaggana weliga aad ka shaqaynayso ood xumaantoo dhan dhammaynayso babbanaa boqortooyadiisa iyo xididada daba socda aniga dhammaantooda waan wada baabi'iyey isbad hore tali war kuwaan ii soo xir waa run malaay raadkiisa in biyaha laga dhex arkayni balse gunna ah malaay ma ahan ee waa yaxaas waana qof aan dabeecad lahayn misna macno leh cadaaladdan yaqaana